dabayaaqadii qarnigii 18aad ayaa ninkii la oran jiray Henry Fall waxa uu bilaabay in uu sameeyo cilmi baaris la xiriirta waxa lagu sheegay in aanu xiriir u dhaxayn karin da'da qofka iyo calaamadaha ku yaala farahiisa. Mawduucan oo muuqday barigaasi mid ahmiyadiisa leh ayaa sanadku markuu ahaa 1829 waxaa dhankiisa dardargelin ku sameeyay caalamkii reer Ingiriis ee Francis Galton ka oo ku takhasusay cilmiga barashada dadyowga iyo dhaqamadooda. waxaana uu la yimid hindise lagu ogaan karo farqiga iyo kala duwanaanshaha u dhaxeeya faraha bini'aadamka. sanad kadib waxaa dambi lagu helay qofkii ugu horeeyay oo fal dambi geystay kadib markii laga qaaday faro lagu ogaaday. waana mawduucan toddobaadkan si kooban ugu eegayno barnaamijkeena ogaalka dunida. sanadku markuu ahaa 1902 ayaa magaalada New York ee dalka Mareykanka ninkii la oran jiray James Johnson oo ahaa nin aad u jecel in uu noqdo ciidanka damdamiska ee magaaladaasi ayaa noqday qofkii ugu horeeyay ee far laga qaado. kadib markii shaqaalihii barigaasi ee doonayay in ay ku biiraan ciidankaasi dabka damya lagu helay laaluush iyo musuqmaasuq kana waxay keentay in hay'adii qaabilsanayd adeega bulshada ee The Civil Service Commission ay bilowdo in ay dib u eegis ku samayso arrinka salka ku haya musuqmaasuqa. waxay soo ragtay go'aan ah in far laga qaado cid kasta oo doonaysa in ay noqoto policy waxa damdamiska. talaabadan waxay noqotay mid durba loo riyaaqay oo la soo dhaweeyay. in haddaba nidaamka faraqaadistu noqoto mid aad loogu riyaaqo gudaha dalka Mareykanka bilowgii qarnigii 19aad waxaa sidoo kale sabab u ahaa ninkii la oran jiray Henry D. Frost oo ahaa dhakhtarka howlgali jiray magaaladaasi. wuxuu aad u jeclaa in uu akhriyo wararka la xiriira faraha la qaado iyo habka loo qaado. D. Frost si arrinkaasi wax badan uu ku ogaado ayuu cilmi baaris waxa uu ku tagay magaalada London iyo xarunta booliska looga aramiyo ee Scotland Yard oo bilagiiba ahayd ciidan horumar aad loogu riyaaqay ka gaartay arrinka la xiriira faraqaadista. hannaanka faraqaadistu inkasta oo ay ahayd cilmi cusub oo nolosha bini'aadamka ku soo kordhay haddana waxay bilowgeedii ahayd mid ku koobnaa maamulka iyo maareynta Mareykanka iyo Ingiriiska. sidaas oo ay tahana waxa barbar socday tijaabooyin kale oo salka ku haya sida laamaha ammaanka ay u adeegsan lahaayeen marka laga hadlayo xal u helidda faldambiyeed ka dhaca bulshada dhexdeeda. tusaale ahaan dalka Hindiya dhamaadkii qarnigii 18aad waxaa ka dhacay dil aad u foolxun oo adkayd in la helo cidii ka dambaysay. walow oo kiiskaasi uu ahaa mid kooxdii garsoorka ku riday jahawareer haddana ugu dambeyntii waxaa la helay qofkii dambiilaha ahaa ee falka geystay. balse dalka Ingiriisku waxa uu ahaa dal kaga horeeyay sanado badan dunida galbeedka ee barigaasi adeegsiga nidaamka faraqaadista. maxaa yeelay waxa uu adeegsan jiray adeegyada dawladda hoose sida mushaar bixinta shaqaalaha iyo wixii la mid ah ka hor intii aanu boolisku u weecin adeegyada kale ee la xiriira garsoorka iyo dambaarista. sidoo kale sanadku markuu ahaa 1905 ayaa raggii la oran jiray Alfred iyo Albert Stratton lagu xukumay dil daldalaad ah kadib markii ay geysteen dhac iyo dil. waana markii ugu horeysay ee taariikhda dalka Ingiriiska dad dil lagu fuliyo kadib markii fara laga qaaday la ogaaday dambiga ay geysteen. ugu dambeyntiina maanta waxaa dunida loo oran karaa booliska hay'adaha ammaanka qaabilsan iyo maxkamadaha garsoorka midna muran iyo doodi ma geliyaan kiisaska horyaala ee la xiriira falal dambiyeedka. sidaasi si la mid ah garoomada laga dhoofay caalamka iyo hay'adaha qaabilsan socdaalka ee jinsiyadaha nidaamkani waxa uu noqday mid adoogoodii wax badan oo horumar ku soo kordhiyay iyadoona ay u sii dheer tahay teknolojiyadda cageeda ka dheeraysay ee maanta aadanaha jira ay adeegsanayaan.